waxaa jiri jiray gabar waxay soo iibsatay taleefan qaali ah. aabaheed baa ku arkay taleefankii markaa buu ku yidhi, aabbo, markaad taleefankan soo iibsanaysay wixii ugu horreeyay aad samaysay maxay ahaayeen? gabadhii baa ku tiri, waxaan soo geliyey qolof sare oo taleefanka difaac u noqonaya kana ilaalinaya inuu jabo. aabbihii baa ku yidhi, cid kuu qasabtay miyaa jirta in aad sidaas samayso? gabadhii baa tiri, maya, layguma qasbin, laakiin aniga ayay anfacaysaa inaan sidaas sameeyo si taleefankayga uu nabadgalo. aabbihii baa ku yidhi, ma kula tahay inaad ceebaysay shirkaddii taleefankan soo saartay? gabadhii baa tiri, maya aabbo, shirkaddu ayadaaba nagu talinaysaa in aan samayno sida taleefankiina qolof sare aan gelinno si uusan taleefanka nooga jabin. aabbihii baa ku yidhi, miyuu foolxumo u soo kordhinayaa taleefankan? gabadhii baa tiri, aabbo, aragtidayda maya, qurux ma ogiye, foolxumo uma soo kordhinayo. intuu si dareen la u eegay buu ku yidhi, aabbo macaani, xijaabkuna waa sidaa oo kale ee ku dhegnow had iyo goorba.